هدو روح أي وداها لسكما قدين أبو الله أبويا وبقاد وهقاد سيرين أبو هذا الداير شباب هلاقي كداعي هوي 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 هبقى كودي شعبي وهان كداها سلي هبقى كودي شعبي وهبقى كودي شباب هان كداها سلي waxaa soo gabagaboobay shirkii qiimeynta warbixinta waxqabadka rubaca koobaad ee saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ah ee sanadkan 2015 oo maalmihii u dambeysay ka socday degmada Baarey waxaana munaasabadii xiritaanka shirkan qiimeynta oo si heersare ah loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen guud ahaan saraakiisha ciidanka iyo shacabka degmada Baarey xiritaankeedii ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ah Sareeye Guud Cabdi Cali Siyaad iyo taliye ku-xigeenka ciidanka Sareeye Guud Cabdiraxmaan Axmed Nuur iyagoona halkaasi hadallo dardaarana ka soo jeediyay saraakiisha ciidanka gaarka gaar ahaan waxaan kula dardaarmayaa iyagana halkan baynu ku jiraa halkan caqabado fara badan baa ka horeeya caqabadaha ay naga hor iman doona inaan si miisaaman aynu u dhaafno oo aynu ka dulboodno yaa loo baahan yahay sidaad la socotaan al-shabaab waxaynu tusnay in la dili karo geeska afrika sidii odaygii nabadoonka ahaa uu sheegayay waxaynu tusnay in la dili karo la iskana celin karo dadka shacabka ee Soomaaliyeedna maalkooda iyo naftooda inay ka difaacan karaan baynu tusnay halgan ballaaran baa ku bilowday dad fara badan baa ku horeeya maanta al-shabaab gobolka Hiiraan buu kaga socdaa dagaal aad u badan oo u baaxad weyn galmudug baa bilowday dagaal aad u badan oo u baaxad weyn wax waliba waqti buu leeyahay al-shabaab waqtigeedii waa soo dhamaaday marka waxaa loo baahan yahay inaan u diyaar garowno sidaynu isu raacin lahayn al-shabaab waxa yarka ah ee ka hadhay ogxantooda inaan magaranaysaa burburino yaa loo baahan yahay oo aynu u diyaar garowno in badan ba ina dhibaataysay bartay joogtay inaan nagu ku dhibaatayno haddii ilaahay yidhaahdo howlgalkii gobolka Afdheer ka bilowday shacabka gobolka Afdheer boqolkiiba boqol buu na garab istaagay degmada Baarey hadda ka hor in badan baan u mahadnaqnay in loo mahadnaqana waa waajib eegana waan u mahadnaqaynaa degmada Baarey iyo akawaabigeeda dadka jooga degmada Qooxle iyo akawaabigeeda dadka jooga Dharraaye Huluul Ceel Axmar onka meesha la yiraahdo ilaa iyo Laasbar dadka degan boqolkiiba boqol aad baan idin jecelahay aad iyo aadna waan ugu mahadcelinaynaa dadka gobolka Afdheer degan inta ka sagow waxa weeyaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahadnaqaan rabaa maamulka degmada Baarey iyo shacabkeeda waxaa maalmahan shir looga socday muddo 12 bari ah degmada Baarey shirkaas oo ku saabsanaa sidii ammaanka aan u adkayn lahayn loona sii laba jibaari lahaa shaqooyinkay socday iyo dagaaladii la soo galay qaybtii ciidanka uu ku lahaa sidii loo sii laba jibaari lahaa cadowga kaasoo runtii shacabka gobolka Afdheer marar badanna aan u mahadcelinay haddana aan uga mahadcelinayna kaalintii ay ka qaateen kaalin laxaad la ka qaatay dagaalkaas runtood cadowgan aan laga guuleysteen haddii ayna iyagu garab istaagin ciidanka oo ay iyagu jabkii ku dhacay cadowga ay u ahaayeen kaalinta koowaad shacabka lahaa waxaa kaloo u mahadcelinayaa saraakiisha ciidanka oo runtii iyaguna shaqooyinkii adoweydeen raggii qabtay dhammaantood caawa halkan jooga inaan muddo halkan isku waraysanno aanan shaqooyinka sidaan u sii laba jibaari lahayn aan iska waraysanno oo meelo kala fog uga yimid shirkan oo ahaa shir muhiimadiisa wata nasiibna ay u yeelatay in saraakiisha new boolisku ay degmada Baarey isugu timaado mudnaantaan aan u siinaynay wanaagii ay keensadeen
waxaan ballan qaadaynaa oo rabaa inaan caawa shacabka hortiisa ka ballan qaadno inaan cadow kasta oo alqushaasha iyo mid walba oo deegaankeenna iyo shacabkeenna dhib ku ah inuu dharbaxa xun la kulmaa geesta kale gudoomiyaha degmada Baarey iyo waxgaradka degmada ayaa iyaguna dhankooda si wada jira ugu mahadceliyay ciidanka kana sheekeeyay guulihii argixisada ka soo hooyeen ciidanku qiimeyntii maalmahan ka socotay degmada Baarey ee la soo gabagabeeyay oo caawa xafladeedii aan joogno waxay ahayd qiimeyn ay waxyaabo badan lagu lafagurayay oo khaladaadkii intii 3 bilood ee soo soconay ee dagaalka aan ku jirnay ee la dagaalameynay khawaarijta inagu soo duushay ee doonayay inay dhibaato noo geystaan ayaa lagu qiimeynayay waxyaabihii wanaagsanaa ee la qabtay in la dhiiri geliyo oo hore loo sii wado wixii khaladaadka ahaa ee naga dhacayna in wax laga barto oo dib noogu soo noqonin baa qiimeyntan loo qabtay sidaa daraadeed waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xukuumadda iyo mas'uuliyiinta ciidanka ugu sareeya maadaama ay iyagu go'aansadeen in lagu qabto degmada Baarey farxad bayna noo tahay sharaf bayna noo tahay aad baad u mahadsantihiin halkan farxadda taala caaw waxa weeye ciidan iyo shacab iyo xukuumad isku duuban oo isku far ah oo dhammaantood muxuu hal fikir isla qaatay haddii aan bilaabo muxuu ahaayay khawaarijta al-shabaab mee shabaab waa dhalinyarada yaa la dhahaaye waa khawaarijta lagu sheegay sharciga islaamka waxaa la ogaaday in ay yihiin khawaarij adduunka muxuu ahay laga nacay oo ehlunaara oo nolol diid ah waa nolol diid weeye waa nolol diid nolol may ogola mar hadday nolol diid yihiinna waa inaan iska celinno oo u midoobna weeye war haddaynan u midoobin oo ciidanka iyo shacabku aan iskaashanin ciidanka kaliya waxa ma qaban karo shacabkuna kaliya waxa ma qaban karo sababtu wuxuu qaban karaa waxa weeye waxa ciidanka indhihiisu waa shacabka haddayna arag shacabku haddayna arag oo inaan soo sheegin oo indhiin halkan uu maray waa halkan uu ku jira haddaynan ciidanka way ka dhuumanayaan markay dhuuntaana shacabkiiba u doonanayaan nolol waa in markay nolosha u doontaan intii la qabto telefoon la diro la soo sheego way wanaagsan oo sharaf leh ayaan u soo dhaweynaynaa ciidamada naftooda noo huray ee dhiigooda noo huray ee u diyaar garoobay inay naga saaraan nabadiidka khawaarijta ah ee waxay haystaan aan jirin qaabka loo soo sharaxay ama qaabka looga soo sheekeeyay waad maqlayseen aan biyaha ku dhaansado baa la yiri nin raga oo biyo lagu dhaansanayo waad garanaysaan karaamada uu leeyahay halkuu marayo waxaan dhihi lahaa halkaasaan ka sii xoojinaynaa shacab iyo ciidan isku duuban deegaanka Soomaalida uu ka jiraa waxaan leeyahay nabad iyo khayr iyo barwaaqo iyo baraaraan idinku sagootireynaa qalbi furan oo wanaagsan baan idinku soo dhaweynay haddana waxaan idinku sagootireynaa qalbi wanaagsan oo nadiif ah oo caafimaad qaba ugu dambeyn kooxaha fanka iyo suugaanta ciidanka xoogga gaarka ah oo uu heliyo Cali Bashiir Cali Dhaanto ayaa halkaasi ku soo bandhigay heeso cusub iyo riwaayad dhiirigelinta ciidanka ah waxaana ugu dambeyntii abaalmarino kala duwan la gudoonsiiyay saraakiishii ciidanka ee guulaha horseeday maamulka gobolka Afdheer iyo kuwa degmada Baarey iyo bulshadii sida hagarlaanta uga qayb qaadatay howlgalladii argagixisada lagu jabiyay هدو روحا أي وداها لسكما قولين عبو الله عبويا هو بقادو هقادي سيرين عبوا هذا الدايو شباب هلاقي كداعي هوي 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 هبغن كودي شعبي وهان كداها سلي هبغن كودي شعبي وهبغن كودي شباب هان كداها سلي